ama raqal dan baa la bixiyey guutaba guutay ka shakiday isdhiib guut hebelba oo isdhiibtee ayay sheekada ku soo rurtay markuu gacan galay communicationkii ee ama raqal dan dhacay ee la kala shakiyey waa laga baxay gooja caddi faysal cabdi bootaan dagaal buu ku jiray inuu dhinto iyo in la qabto iyo in uu isagu wax dilo iyo in isagu wax qabtaba meeshuu joogay nin bakhaar burca ku haysto bakhaarkiisa inta laga basaasay lasoo qafaashay faysal ma ahayne geesi dalkiisa u dagaalamayo la qabtay buu nambarka huwantee dagaalamayey 2,500 oo askari bay ahaayeen kamay badnayn ninka idhaa way ka badnaayeen waa nin faanayo been sheegaya xog baan haya anugu ciidamada qaranka meesha ku joogayna 20 kun wax yar baa ka dhirnaa wallaahi baanan been ku dhaaranayni hargeysa waxa jooga qaar tijaara oo daara ku leh dhaadheer oo aanan magac dhabayn laakiin hadalkayga markay maqlaan garanaya oo habeen iyo maalin la hadla gala dagaalka oo weliba uu ku yidhaa lacag ii soo dira oo uu lacag ka sugaya innaga laynagula dagaalamo waana ictisaam nimankaas xalay ceeri gaabo indha ku garaadlihii huwanta la socday wuxuu tijaabiyeyba inuu ceeri gaabana wax ka samayn karayo waana ka samaynaya hadday arkaan qaybsanaan nin walba waxa uu dana midnimada kiliibbaa la samaynaya la duubaya qaar habar jecla iska dhigaya qaar garxajis ba iska dhigaya qaar balaayo kale iska dhigaya wax allo waxaana huwantii baa wado oo lacag ku kharash garaynaysa dagaalku 9 bilood buu socday 9 bilood uu socday maalin laynagama guulaysan maalin walba waynu guulaysanayn guushuna lamaynu dhalana dagaalkay ka mid tahay guusha iyo guuldarraduba guuldarrada dhacday waa taa aan xoogga laynagu muquunin dagaalkii shalay oo sida wax u dhaceen aynu ka dharagsannahay inaan ka faalloodo halka wax marayaan iyo talo ayuu barnaamijkeenu daaran yahay aan bilaabe dagaalkii shalay dhacay qof kastoo caqli lagu muuqday inaan xoog laysku muquunin xoog laysku muquuniyo ma jiro gooja caddana dagaal kama dhicin maraaga meesha leedhaabu ka dhaca wakhti kooban buu soconayay dagaalkaasi guuldarrada dhacday mid ciidanka qaranka gudihiisa ka timi ayay ahayd mid xoog lagu muquuniyey ma ahayn xogtaan hayo nambarka huwantee dagaalamayey 2,500 oo askari bay ahaayeen kamay badnayn ninka idhaa way ka badnaayeen waa nin faanayo been sheegaya xog baan haya anugu ciidamada qaranka meesha ku joogayna 20 kun wax yar baa ka dhirnaa inta areadaa joogtay ma jirin awood lagu muquuniyey ciidamadaa waxaa dhiishkaa dhaqaaqay ma maqasha dhiishkaa dhaqaaqay communicationkii ayaa la qalday oo u gacan galay cadowga ama raqal dan baa la bixiyey guutaba guutay ka shakiday isdhiib guut hebelba oo isdhiibtee ayay sheekada ku soo rurtay markuu gacan galay communicationkii ee ama raqal dan dhacay ee la kala shakiyey waa laga baxay gooja caddi taliyihii joogay ee halkaa maamulayey talo fiican buu gaadhay hubkii weynaa ee lagu dagaalami lahaa ee haddii huwanta iyo argixisada uu gacanta u galo aan laga seexdeeni wuu baxay gaadhigaa qallibmaya b m k 21ka iyo hal madfac ayaa 50 gaadhi oo madaafiic iyo b m isku jiray lagala haray oo midna kaa qallibmay iyo midna laga tegay labadaba qarxii lagala baxay hub kale oo muhiima oo laysku oo meeshaa lagaga tegay ma jiro aan ahayn taangiyada marka horeba socon waaye meesha yaalla iyo xaabxaabka waa laga urursaday maca rasaastii gooja caddi ninkaas sidaa ku taliyey ayaana cayntiyey markuu arkay in wax qaldan yihin ragga dadkeenna hayb lagama waayo waxaan arkayay rag badan oo qabiil u sawir saaraya taliyaha la qabtay faysal cabdi bootaan mujaahidka oo geesi taariikhdu qori doonta ah markuu dagaalamayana geesi ahaa markii la qabtayna raganimo iyo geesnimo ka muuqatay aniga waanu xidhiidhayno dadkii ugu dambeeyey wada hadlayeen baan ahaa ee saacad walba wada hadli jireen halkuu joogana waa geesi haddii la qabtayna waa geesi waxaana loo hayaa qaar badan qaar kalena waa loo qaban doonaa rag badan baa lahaa faysal
waa la qafaasheeyey rag baa sheegay iyo rag baa basaasay iyo rag baa dhiibay maalinta ay wax dhacaan ayaa raggu kala baxaa oo ragna dumarka ay la baroortaa ragna ay taliyaan ragga sidaa u hadlayey intay garanayeen bay dhaaftay faysal cabdi bootaan dagaal buu ku jiray inuu dhinto iyo in la qabto iyo in uu isagu wax dilo iyo in isagu wax qabtaba meeshuu joogay nin bakhaar burca ku haysto bakhaarkiisa inta laga basaasay lasoo qafaashay faysal ma ahayne geesi dalkiisa u dagaalamayo la qabtay buu waxaa lala qabtay rag badan oo cid walba leh oo ciidankiisiya nimanba xalay la soo hadlay rag waaweyn aan moodayey oo habeennaga xiga faysal cabdi bootaan oo iska dhigaya in inankoodii habaryoos qabsatay oo igu yidhi ibraahim runtaad sheegtaaye ka hadal arrinta ah in faysal nimankaasi dhabar ka jabiyeen waxaan ku waa doqonnimo hadlaysaan habaryoonistaa ka hadlaysaan kuwa faysal la qabtay ugu badan bay ka mid yihiin kuwa gooja cadda ku dhintay bay ka mid yihiin kuwa dagaalamayay ka mid yihiin waxaa qabtaan bay qabaan isku mid baati haddaa leediin nin ayaga ka mid ah ayaa ciidanka basaaso lacag qaatay dee waa another story waa sheeko kale taasi laakiin faysal baa bakhaar haystee lasoo basaasay nin kalehe caqligiisu intaa yidhi ow habeen maad jirin kuwaad sheegaysaana faysal bay la xidhan yihiin oy la ridayeen oy la mid yihiin haddii hayb iyo habeen laga hadlayo ragga ciidanka basaasay ee lacagta qaatay ee aan la haynin kuwaa la eedaynayo ayaa ka mid ah ee nimankaasi ku sheegayaan inay faysal aftuubeen nin reer booramaaba ka mid ah madaxweynaha jilibkiisa hoose mid ay isku reeriyiin baa ka mid ah ninka xun iyo cadowga guduhu weligiiba uu jiray ilaa xilligii nebigu jiray kuwa asxaabta ka mid ah ayaa munaafiqiin ku jirtay gaalada u adeega dagaalkii aynu soo gallay halgankii ayay qaar naga midi xagga kale ka soo ridayeen oo ay lugtahayeen maantana waa sidii uun waxa soo kordhay waa social media oo wax badan oo dadku in koobani ogeyd ayaa maanta guri walba laga ogyahay markaa mar kastoo la halgamayo hayb walba nin lihi wuu ka baydhaa halganka looma nusbayn karo habaryoonis iyo garxajis ninka sidaa u fikirayo habeen wallahi naa jir kuwa ku dhimanaya meeshay ka mid yihiin kuwa la qabtay way ka mid yihiin dadkooday ka mid yihiin haddaad ogtihiin waxaan ogahay waa yaabi lahayd wallaahi baanan been ku dhaaranaynin hargeysa waxa jooga qaar tijaara oo daara ku leh dhaadheer oo aanan magac dhabayn laakiin hadalkaygaa markay maqlaan garanaya oo habeen iyo maalin la hadla gala dagaalka oo weliba uu ku yidhaa lacagii soo dira oo uu lacag ka sugaya innaga laynagula dagaalamo waana ictisaam nimankaas qabyaaladan iyo habeenadan iyo reerahan aad u haysataan iyo mabaha wax ka weyn bay raadinayaan kuwaas qabiil walbana way leeyihin waxaasaa waddankeena ka jira dagaalka inagu soconaya kaasoo ka mid yihi maxaa laynooga baahan yahay waxaa laynooga baahan yahay midnimo cadowgeennu maanta wuxuu ka shaqaynayaa ciidankaa dhiishka la dhaqaajiyey ee isgaadhsiinta laga qabsaday ku jabay in baaqiga hadhayna la kala shakisiiyo qabiil loo kala shakisiiyo reer walba way leeyihin kuwa huwanta u adeegaya reer walba way ku jiraan bariga burcay ku jiraan galbeedka burcay ku jiraan hargeysay ku jiraan kuwa degan intaba way leeyihin xogtadan waan hayna dowladduna waa ogtay intaanu sheegayno in ka badan baa luuqa martay oo xogteeda la hayaa waxaa la yidhi nin reer u weyn iyo gabadh ka umnusay midna siduu waxu ogyayey waxba uma sheego wax badan baan qaranaya lakin waan dulka xaadinaya waxaan leeyahay dagaalku 9 bilood buu socday 9 bilood uu socday maalin laynagama guulaysan maalin walba waynu guulaysanayna guushuna lamaynu dhalana dagaalkay ka mid tahay guusha iyo guuldarraduba guuldarrada dhacday waa taa aan xoogga laynagu muquunin xooggii iyo quwaddii iyo ciidankiiba waynu haynin qaladkuna gudaheenu ka yimi maanta waa la saxay wixii ka dambeeyana waa la sixi doonaa nin laysku raacsan yahay baa taliya agabare laga dhigay oo geesiyo anna aan aqaano ciidankuna ku qanacsan yahay haddaan tusaale siiyo maraykanku afghanistan buu 180,000 oo ciidan u sameeyey oo daalibaan ka hortaga
millions of billions of dollars buu geliyey haddana taalibaan kuwii u tababaray ee 180 baa 100 noqdeen qaar taalibaan la shaqaynaya oo lacagtii Mareykanka iyo awooddii Mareykankaba dhabar ka jabiyey Mareykan waliba ma hayna 350 oo Mareykanku hogaaminayo ciidamada reer galbeedka u badan oo maca kuwa carabta ku jiraan ayaa Afghanistan joogay waa quwaddii adduunka ugu weynayd 350 oo ciidani waad garan kartaa intay yihiin dowladaha ku jiray ilaa imaaraadka ku jiray haddana waa la jabiyey way dhacdaa Hitler baa la qabtay maanta dagaalku maanta ka weynooy waxa aad dhibsanaysaana anigu meel kale ka eegayaayo waa tii nabadeenaysi maanta xogtan hayo xisbiyada mucaaradka iyo taageerayaashooduba meel baa dagaalka soo warjeedinaya xalay Ceergaabo inda ku garaadlihii huwanta la socday wuxuu tijaabiyeyba inuu Ceergaabo wax ka samayn karayo waana ka samaynaya hadday arkaan qaybsanaan nin walba waxa uu dana midnimada madaxweynaha hal baan leeyahay nimanka aanu tolka nahay ee kursiga u waashayna hal baan leeyahay reer Soomaaliland hal baan leeyahay madaxweynaha hal baan leeyahay waxaan leeyahay madaxweyne wax ku qaado xaaladda taagan Puntland ta agteena hal maalin bay gudahooda 70 iska dishay garow gudiisa way isu soo gurmadeen intii kala wada ujeedada ahayd ee siyaasadda ku cilowday waxay u midowday inaga ina diyaana iyo waxaynu ognahay iyo dani qolada Ciise Maxamuud iyo dani baynu ogeyn argagixisadii baynu ogeyn ilaa kuwii galgala ilaa kuwii jubooyinka joogay oo magac mideeyay iyo qabiil ilaa kuwii Kenya joogay bay noo midoobay ilaa farmaajo intuba siyaasadda ugu kala jeedaan haddana inaga way noo mid waxa la inaga rabaa madaxweynuhu maanta inaad dadka midayso oo tanaasuso oo waxa taagan maanta ku cabirto taladaada oo tanaasul badan aad samayso iyo midnimada dadka u midan leed madaxweynaha taaleen nimanka aanu tolkanay ku soo waasheen waxaan leeyahay warka dhimanaya waa idinka ugu badan warka magac xumada qaadanaya basaaska lagu sheegaya u galaya waa idinka magaciin dib u sitaa warka buurta fuulaya waa idinka warka haddana dagaalamaya ee ku dhimanaya waa idinka wardan isugu waduda raggiinii oo dhimanayo goojacdo ku dhimanaya lahayd dagaalka garxis ku jiro oo ina ceebeynaysi ciladii la abuuray baa halka gaadhay kuwa caruurtooda la gowracayana waa idinka idinma kala sokeeyo cadowgeena la dagaalamaya idinka iyo kuwa kale u kala abtirinayo dad inoo midoobay ayaa la dagaalamaya oo kala wada siyaasada taateedii baa laynaga rabaa kursiga waxa ku fuli doontaan marka dalkiina difaacdaan ee kasbataan inta kale ay wax ka dhaxeeyaan walaalaadkiin ee meel ugu soo jeestaan talada saxdii ee meel ku gaaraysa waa taa 40 inoo buur fulaa walaal inay kursi ku fuuleen waxna kaga noqonaytaan ceeb waxaan idin ka qaadin aqligu ha shaqeeyay inta aqliga laay hadaawanine arrinta wax ka qabto midaya dadkiina taana tolkay baan leeyahay Somaliland baan leeyahay Somaliland waxaan leeyahay kaliya la sameynaya la duubaya qaar habar jecel iska dhigaya qaar garxas iska dhigaya qaar balaayo kale iska dhigaya wax alla waxaana huwantii baa wado oo lacag ku kharash gareynaysa si leedin kala shaqsiyo oo ciidamada loo kala abtiriyo qabiil waliba uu hubkiisa gaar u cararo oo la kala fariisiyo ee laga shaqeynaya ha xayeysiinina waxa la idin soo sameeyay iyo midhaha la idin soo sameeyay ku luuqeynina ha noqonina aqoon gaab ku luuqeynaya midhii loo soo dhiibay oo aanu garanayn wax ka iman doona taariikh baa qormaysa ninka dadkiisa iyo dalkiisa ka hor yimaada ee haddana aan waxba bedeli doonin isaga tiisa aan noqon doonin takalay noqon doonto taariikhda ku qori doonta taariikh baa qormaysa inta majority-ga ama guuleysanaysa mar walba waxaan leeyahay ha ka shaqeynina kala furfurkeena ee midnimadeena ka shaqeeya waxa la idinku soo dhex tuurayana
iska joojiya waxaynu xisaabtami doonaa maalin kale ayaynu la xisaabtami doonaa ninka cadow inoo soo raacay innaga oo shakhsi hebel la yidhaah ula xisaabtamayno qabiil u nisbaynayn